السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواad saaxiibada qiimaha mudan ay ku xiran janaalkan walaalaha family oo markale muuqaal horle waan uga hadlaynaa musalsalka walaalaha maxaa ka cusub maxaa ku soo kordhay xalqada nagu soo wajahan ee 62 hadaba daawad hadii tahay markii ay soo booqatay janaalkan walaalaha family subscribe noo saar sidoo kale muuqaalka like noo saar waa maasantinta ka bacdi soo dhawow muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa san hore u soo sheegnay macluumaadii u dambeeyay waa tahay gabadhii email ahayd may dhimatay mise way noo shahay sidee ku badbaadi doontaa mase laga yaabaa inay taxana sidaasi uga baxdo سويد أجنهيبا درات ولا واحد داوني ما ننتي أربعة كوسكي لبات حلقة اللحظة لبات وأحمد آدي أدو حسابا كده ما كان كوارجنا دعوين لا يابلو يكمديهين كبدي إميل هيدا دول كتيفتا جارين التيرسيي يسيدو كلامك عمرها وكبر رندونا واتاي أجورين تبلهنو هوريسين سيدي عدد أهيد معلومات دا عصب إيكا صباحي هذا بقى horta lama hubo in ay email dhiman doonto oo taxanaha sidaasi kaga bixi doonto lamana dhihi karo way badbaadaysaa lamana dhihi karo wayna dhimanaysaa sababtoo ah directorada wax macluumaada arinkan maysan ka bixin sidoo kale wadooyinka ama yaani hadda koor marka macluumaadada la soo qaaday waxa la sameyn jiray directorada ama taliyaasha qayb kamid ah oo banaanada iska socdo adeeg iska doonta ama shopping iska doontay ayaa saxaafadu gaadi jirtay oo weydiin jirtay sidoo kale boosti ay soo qori jireen laakiinse saxaafada dhankeeda wax warbixin ka soo baxday ma jirto sidoo kale directorada dhankeeda wax warbixin ka soo baxday ma jirto hadda koor qof markuu uu dhimanayo musalsalka walaalaha dhaxdiisa waa la sii sheegi jiray sida hadda koor kan loo sheegay oo kale oo loo dhahay xalqada konton iyo dhowr konton iyo saddex meelaha adii kontonada qayb kamid ah ayuu dhintay mise way ka horeysay adii waa la sii sheegay ayay ahayd kan xilligu dhimanayay ayadoo xitaa gooskooska anaa arag ayaa la sii sheegay ayay ahayd kan xilligu uu dhimanayay inkastoo markii la sheegay kadib laba cisho kadib xalqada ay soo baxdayba haddana xalqada wax badan nagma xigto oo بريتولا ayaa bala daawanaya xalqada marka email dhimashadeeda wax warbixin oo ka soo baxday gabi ahaanba ma jirto waa tahay macluumaadada rasmiga ah ee aad iyo aad loo hadalhaynta hayo ayaa waxa kamid ah ninkii sarbi ahaa markuu gaariga jiirsiiyay gabadhii email ahayd waxa dhacda in uu email gacantiisa ku taabsado oo wajigeeda taabsado isla markaana uu eego inay nooshahay marka labada nin ee la taagan mid kamid ah ayaa waxa uu dhihi doonaa sarbi oo gabadhan hadda ka baxsanaysa leedahay ma dilin xitaa hadii aad baxsatid waadiga wajigeeda taabsaday ama jirkeeda meel kamid ah taabsaday gacantaada ayaa laga heli doonaa sidaasi ayaana lagugu soo qaban doonaa waa tahay horta ma jiro maanta yani horumar sheegaya gacanta hebel laakiin dhiigo kaliya ayaa la sheegi karaa marka macluumaad kale waxa uu sheegayaa ama falcelinta macluumaadkaas ama macluumaadka kale ka soo horjeeda ayaa waxa uu yahay hadii ay booliisku baaraan gabadhaasi qofka wajigeeda taabsaday dhiigiisa marka la baaro dhiiga Umar iyo dhiiga Sarbi waa isku mid sidoo kale Umar ayaa kaga dambeeyay email oo wajigeeda ayuu ku dilbaruurinayay marka Sarbi sidaas darteeda lama soo qaban doono halka dadka qaarina ay leeyihiin ama saxaafadaha qaar iyo macluumaadada qaar ay leeyihiin ninkan Sarbi lagu magacaabo wuxuu ka baxsan doonaa gaariga sidaas daraadeeda waxa dhib yaraanaysa qaabkii loo soo qaban lahaa asaga ayaa dhib yaraanaysa oo gaarigaas taarikadiisa iyo sidoo kale shookaantiisa qofkii waday ayaa la ogaanayaa sidaas daraadeeda waxa dhib yaraanaysa qaabkii loo soo qaban lahaa ninka lagu magacaabo Sarbi Yilmaz waa tahay xoogaa yar macluumaadada oo soo laabanayna aan u gudubno bal dhankaas iyo social media maxaa dhax socda goorintii isla saaka ama subaxdan waxa markii la baahiyay actriska ugu hadalhaynta badan waqti xaadirkan ama 27 u dambeysay markaan ma aha lamaanayaal waa actress dhanka musalsalada Turkiga waa tahay actorka uu horeeyay ugu hadalhaynta badan toddobaadkan waa Doruk kaasoo helay hadalhayn la eg 6,241,000 halka kaalinta labaad ay ku jirto Atarisad taasoo ah isla Aasiye oo iyaduna haysata hadalhayn la eg 6 milyan ayadana oo ayadiyo Doruk waxba yaani ma kala sareeyaan hadda koor Aasiye ayaa kaalinta koobaad ku jirtay laakiin markaan Doruk ayaa ka badan sidoo kale kaalinta saddexaad waxa ku jirta Ekim gabadha lagu magacaabo musalsalka Imaqal ku jirta halka kaalinta afraad uu ku jiro Kanaat oo isaguna ah atooraha musalsalka Imaqal kaalinta shanaadna waxa ku jirta gabadh kamid ah musalsalka Tozliyaka waxana lagu magacaabaa Zeynu ayaa lagu magacaabaa hadaba fiidiyoogani waa gabadha Aasiye ahayd oo baaskiil wadata halkaasna waxa nooga jeeda in aysan email dhimanaynin oo xitaa macaslaameyn aysan jirin
hadda kahor qadiir markuu dhimanayay istooriyada dhan waxaa haystay qadiir macaslaamiintiisa, sidoo kale kaan istooriyada dhan macaslaamiinta kaan ayay ahayd. Marka halka waxaa nooga cad in aysan email xalqada nagu soo wataan aysan dhimanaynin, maybe xalqada kasii dambaysa inay dhimato oo xalqada soo socota inta dhakhtar gashata kasii dambaysa ay sidaasi ku dhimato, laakiin xalqada nagu soo wajahan ani ahaantayda lama aha email ina dhimanayso. Sidoo kale waxaan rabay inaan idin sheego in aysan yacni wax macluumaada kasoo bixin arrinkaasi. Waa tahay aan u laabana macluumaadadii. Haddaba waxaa laleeyahay sababta kaliftay in gabadhan emaila gaadhi la jeersiyo ama dhaawac soo gaaro oo qisada xoogaa la yar garab maro waxay tahay directorada ayaa waxay go'aansatay inay taxanaha shido xiisana u yeesho si daawashadu kor ugu kacdo xalqada nagu soo wajahan. Sababtoo hadda markii la arko email oo dhiman rabta xalqada nagu soo wajahan daawashadu waa ay badan doontaa, isla markaana waxaa dhacaysa in daawashadu ay kor u kac samayso, dakhli badanna uu soo xaroodo xalqada nagu soo wajahan. Bal waan aragnaa fikirkeedaas in uu macni u rumoobo ama in uu sida loogu talagalay u noqdo. Bal xalqada soo socotay ay kor u kac samayso dee qoftan sidii ay rabtay waa ay hesha ayay ka dhigan taho, email sidaas ayay ku sii noolaanaysaa. Kirada noocana marar badan ayay ku guuleysatay ayaa ahayd sida qadiir dhimashadiisii oo 5 toddobaad wax la kaalinta koobaad ee dhanka ugu musalsalada ugu daawashada badan ay ku jirtay taxanaha Kardashlarim, iyo sidoo kale markuu kaan dhimanayay kaalinta koobaad 3 toddobaad wax la ayay ku jireen. Haddaba dhacdooyinka nagu soo wajahan xalqada soo socda waxaa kamid ah Singuul oo dhalin rabta, iyo sidoo kale mar kale waxaa la sheegay in Cumar aabihiisa uu ogaan doono oo markaan si sax ah uu ogaan doono kadib marka laga soo kabsado dhaawaca email soo gaaray oo arintaas oo dhan la soo afjaro oo email wixii ku dhacay la iloobaday oo caadi looga soo kabsado. Cumar ayaa mar kale aabihiisa ogaan doona ayaa leeyahay. Markii uu dambeysay Cumar waa uu ku fashilmay inuu aabihiisa ogaado ayay ahayd oo hooyadiisa ayaa akhbaar ama macluumaad been ah u sheegto, waxay ku tiri qofkaani aabahaaga ma ahan. Haddaba sidoo kale xalqada nagu soo wajahan waxaa la sugayaa jacaylkii saddex geesoodka ahaa ee dhexmari doona IBK Beerka iyo Tolga oo sii xoogeysan doona markaan dagaalkiisa. Tolgan xaqiisa ayuu dagaalamayaa, Beerkana xaqiisa ayuu dagaalamayaa, IBKna labadaba diyaar ayay u tahay. Bal waan aragnaa sheekadaasina halka ay ku dambayso. Sidoo kale waxaa xalqada nagu soo wajahan iyaduna arrinka aadka loo xiiseynay kamid ah Leyla, Cumar, Suusi, ayagana arrin xiiso leh ayaa halkaa ka dhici doona. Waa tahay daawade, intaas waxaan ku soo ekeynay muuqaalkeennii maanta aan uga hadlaynay musalsalka walaalaha ee daawade. Fadlan haddaad ku cusubta channel subscribe noo saar, sidoo kale muuqaalka like noo saar. waan ugu saaxiibkiin Khalid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.